السلام عليكم داوديال ku soo dhawaada muuqaal cusub oo halkan aan kaga hadli doono qisada markaasi maanta markii aan akhriyay aad ii taabatay qisadani waxay ka hadlaysaa laba nin oo markaasi sikadiisa ku kulmay nin ayuu ahaa ninkani wuxuu ka fasax qaatay shaqadiisa wuxuu la safray markaasi oo kala safray magaalada Kuufa isagoo u socda dhanka magaalada Basra familkiisa iyo asaga ayaa israacay dalxiis ay u baxeen meel laxa markii ay sii marayaan kala barka wadadii iyo halkii ay u socdeen gaari ka halaabay ninkii reerka watay gaarigii uu jiiday wuxuu geeyay geerish markaasi ku dhawaa oo ajo meesha looga shubanaya ahaa tii ka dambaysa gaari walba oo meesha mara uu dhaafayay uu waayay gaari qaada uu dambeyntii waxa soo maray nin wata gaari kaligiisa gaariga ayuu baakabay uu ka soo degay ninka ayuu yimid wuxuu yiri maxaa dhacay xaaladda ku dhacday ayuu sheekeeyay ninka gaarigan watay oo ka soo degaya oo ugu imaanaya familka meeshan wuxuu ahaa nin markaas yaqaana habka gaariyaasha loo sameeyo gaariga ayuu fiiriyay wuxuu u sheegay ciladan inay tahay cilad aan si fudud lagu xallin karin marka wuxuu ku yiri waxaan ka doonayaa in aad gaarigaygan wadataan maadaama adiga aad famil wado aniga gaarigana la sii joogayaa meeshaad rabtaan markaad gaartaanna gaari weyn oo aniga iyo gaarigan halaysan bana qaada aad soo gashtay ninkii wuu la yaabay sidee bay macquul ku tahay yiri la yaabay ku balse ugu dambeyntii wuxuu ku yiri oo ku qanciyay in uu gaarigii uu wato sidii uu sheegan uu yeelo ninkii asagoo la yaabay ninka wanaagiisa uu baxay magaaladii uu soo diray gaarigii ayaa ninkii iyo gaarigii halaysana lagu qaaday magaaladii uu la tagay ninkii gaarigiisa ku wareejiyay isla markaa gaarigiisa ka qaatay wuxuu yiri niyahow waxa tahay nin cajiiba nolosheedii ma aanan arkin sidaan oo kala ah sidee maxaan kugu amal gudaanay wuxuu saaxiib ani arintan ma aanan sameeynin inaad ii amal halka markii arintii taagan tahay ninkii asagoo yaaban oo ninka wanaagiisa la yaabay waa soo xiriirinaynay lambarada aan kala qorano lambaradii baa la kala qortay muddo kadib ninkii asxaanka loo sameeyay iyo asxaabtiisa meel fadhiyaan waxa laga sheekeynayay dadka wanaagsan iyo dadka muslimiinta qisadii ninkii abaalka u galay ayuu soo qaatay wuxuu ku yiri yahow nin caynkaaba jira oo intaan bini aadam wanaagsan arkay ninka wanaagsan ma arkin halkii bay ku soo dhacday in uu waco ninkii isla markiiba wuxuu ku yiri ninka ma wicin bariyahana waa inaan wacaa lambarkii buu garaacay naagtiisa baa ka qabatay way ku qaylisay waxay ku tiri war deyn baad ku leedahiin maalin walba iska soo wacanaysaan Soomaaliland xiranin ninkiisu idima xirna maxaa u soo garaacaysan lambar wuu yaabay wuxuu ku yiri war maxaa dhacay Soomaad ahayn bay ku tiri ninkii deynta kula war ani ma ihi maxaa dhacay xaaladii uu sheekay wuxuu ku tiri warninkii deymo badan baa lagu leeyahay oo deymihii waqtigii uu ku balansanaa inuu bixiyo dhaaftay xabsigana la geystay oo waa la xirtay ii sheeg buu xabsiga meesha ku yaalo macluumaadkii bay siisay halkuu ku xiran yahay saldhiguu ku xiran yahay xogtiisa xaafadiisii uu ku laabtay wuxuu soo qaaday $100,000 wuxuu yimaaday saldhigii uu ku xirnaa ninkii asxaanka uu sameeyay oo markaana deynta lagu haystay wuxuu ku yiri taliyihii saldhiga nin noocaas halkan ku xiran yahay haabo weyn wuxuu niyow deymo ma lagu leeyahay $100,000 si ana u sheegin qofka uu keenay oo waxa ku dhahdaa nin wanaagsan uu ba Allah kaaga soo qaaday bal isaga bixi deyntii ayagoo lacagtii ka qaaday taliyihii ninkii uu iska baxay wuxuu ku yiri warniyahow nin baa lacagtan ku keenay uu yiri ha sheegin oo nin wanaagsan bay lacagtan kaaga imaatay dul wanaagsan baa ku keenay deyntii isaga bixi niyo aniga lacagtii lagu leeyahay waa $3 milyan $100,000 waxba kaba qabanayso balse ana xal haye isiiyo wuxuu waay dhamaan dadkii maxaabiista ahaa oo kula xirnaa halkaasi 7 maxaabiis oo kamid ah maxaabiistii meesha kula xirneed ayuu $100,000 ku gaayay ninkii 10 lagu lahaa ninkii 20 lagu lahaa ninkii 3 lagu lahaa ninkii $100 lagu lahaa oo kala bixiyay wuxuu yiri $3 milyan ayaan anigu u xiranahay $100,000 adiga iyo xubiyadiisii kartaa xubiyadiina oo magaaladiina gala ninkii taliyaha oo la yaaban oo isla warkii hore la yaabaneed oo wanaagan sameeyay kan wanaagan inta la eg sameeynayo oo nin lacagti loo keenay oo inuu xabsi isaga daayo ama uu wax ku qabsado loogu keenay haddana dad ku sii daayay oo doortay inuu xabsi ku sii jiro war maxay tahay arrinta sidaaba ninkii xabsi ugu jiray maalmo kadib oo haddana mar kale ninkii nambarkii soo garaacay isla naagtii baa ka qabatay sidoo kale wuxuu ku tiri ninkii xabsiga ku jira wuu yaabay wuxuu ninkii lama soo deyn waa maya xabsiga ku soo laabtay
ninkiiba xanaaqsan baa taliyihii u yimid wuxuu ku yidhi war taliyeysu kuma aanan dhihin ninka lacagtiisiiyo sideed u wada arrinta intay ka bixisay xaaladiiba uga sheekeeyey war anoo wanaaggaaga la yaabanaa ayaa haddana ninkii aad lacagtii u dhiibtay sidaa uu sameeyo oo ninkii lacagtu geeyo $3 milyan $3 milyan ba ahaa wuxuu waxaad ii qortaa warqad caddaynaysa in $3 milyan dhankan lagu leeyahay warqadii buu qoray ganacsatii isaqaaniin uu aaday $3 milyan buu soo aaday u keena taliyihii wuxuu ku yidhi ha u sheegin qofka u keeno ku dheh nin muxsin bay kaaga imaatay waxaad siisaa ninkii xabsiga ku jira ha isaga bixiyo deynta sidaas ninkiisa ku helo taliyihii sidii uu sameeyey ninkii lacagtii uu qaatay deyntii uu isaga bixiyey sidii buu ku xiroobay oo deyntii ugu xiroobay waa nin asagoo reerkiisii asagiiba isku go'doonsan meel oo caawiyey ilaahay amarka asna nin xumuu noqon uu u abaalguday haddaba qisadan maxaan kala dhex baxaynaa oo maxaan ka faa'iidaynaa ogow dadka wanaagsan ee adduunyada kamay dhammaanin waa qodobka koowaad qodobka labaadna haddii aad wanaag samayso wanaag baad filanaysaa in lagu abaalgudi doono soomaali waxay tidhaahdaa nin tintiin beerta timir ma sugo nin timir beertana tintiin ma sugo waxaan rajaynayaa qisadani inaad wax uun aad ka faa'iiday haba yaraadaane waad mahadsantihiin